qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari lagu siday walxaha qarxa oo isku qarxiyey jid aad u mashquul badan oo kala qaybiya degmooyinka Waaberi iyo Hodan. qaraxyada halkan ka dhaca ayaa inta badan waxaa ku waxyeelooba amba ku nafwaaya dadaan waxba galabsan ee isticmaala wadooyinka iyo waliba ka ganacsada hareeraha wadada. qaraxan ayaa hadda aan la ogeyn cidda gaarka ah ee lala eegtay, laakiin waxaa ku dhinta dadaan waxba galabsan. waxaa goobta degdeg ku soo gaaray ciidamada amniga, dabdemiska iyo bukaan la roorka si loo caawiyo dadka ku waxyeeloobay qaraxa. afayeenka amniga ayaa la hadlay warbaahinta. waa 10 ruux oo dhaawac ah iyo ilaa ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah oo dhimasho ah. waa la og yahay targetka wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed inay nimanka baabiyaan. waa in saas loo ogaado. ma joogin meesha hadda wadadan ma joogin ra'iisul wasaare madaxweyne ma joogin qof mas'uul oo dawladda title ka hayo. shacabka Soomaaliyeed meesha maraya, shacabka Soomaaliyeed business ka haystay targetkooda wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed nimanka iyaga ah. qarax markuu ka dhaco degmo ka mid ah gobolka Banaadir waxaa durbaba iskaashada gudoomiyaasha kale ee degmooyinkaasi iyagoo soo gaara goobta qarax uu ka dhacay. halkan waxaa taagan qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. waxaan ii sheegaa mar qasaaro uu dhici karaa oo cadowga uu meel uu fursad ka heli karaa, laakiin waxaan u sheegaa shacabka Soomaaliyeed in amnigoodii dawladda ee ciidanka amniga dawladda ay sugeen wayna sii sugi doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. intaasna waa tabardarrada shabaab maanta ay tabartooda intay gaarsiisan tahay. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed maanta waa u jeedin waxay qasaaraha u geysanayaan waa shacab. hal loo arko inay ra'iisul wasaare ama madaxweyne ama taliye ciidan ama taliye inuu maanta ama gudoomiye degme shabaab ay beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed. qaraxii ugu dambeeyay ayaa waxa uu ka dhacay saldhigga Waaberi oo 100 mitir wax ka yar u jirta goobta qaraxan maanta uu ka dhacay. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, degmada Waaberi, gobolka Banaadir.